unuguna wuxuu yahay inuu helo idaacado iyo wariyo aamina istahila xilkiisii unuguna wuxuu yahay inuu helo idaacado iyo wariyo aamina istahila xilkiisii waqti laga sameeyo dadka laga aruuriyay aqligeena oo idil waxa lagu agaasimay maanta codka gobolada dhexe December 2009 ayaa midabada loo taagay oo markii uu horeysay laga dhageysto cadaadada deegaanada hoos yimaada ay noqotay muddadii ay shaqeynaysay idaacaddu waxaa ka soo shaqeeyay wariyaal badan qaarkoodna ay xirfado heer sare gaareen haddana ay ka howlgalaan dalka iyo dibaddiisa idaacadda hadda waxaa ka shaqeeya ilaa iyo 25 wariye 13 wariye oo ka mid ah gudaha xarunta ay ka howlgalaan halka 12 wariyana banaanka ay ka howlgalaan sida magaalooyinka Boosaaso Gaalkacyo Cabudwaaq Jowhar Beledweyne Baydhabo iyo Muqdisho oo ay ka howlgalaan ilaa iyo wariyaasha kale ee 12 ee soo haray garan lee dadweynuhu inta goobta joogtee gabdha iyo wiilal balaho gabigiin istaago sacabka u garaaco dhiirigeliyo wariya maasantiin sida aad dareenkiina lagu qaybsanaydaan wariyaasheenna qiimaha iyo sharafta noole waana idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u hambaleynayaa saaxiibadayda ka shaqeeya warbaahinta codka gobolada dhexe waxaan leeyahay hambalyo congratulations aan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ugu faraxsanaayeen maanta ka soo qayb galo ruuxantii waxaan wada ogsoonahay bulshada reer Cadaado hadaan nahay kaalinta lixaad ay ka soo qaadatay idaacadda codka gobolada dhexe horumarka iyo bilicda kala gedisan ay ka socota magaalada Cadaado ruuxantii waxaan xusi karnaa in ay idaacadda codka gobolada dhexe ay qayb weyn ka ahayd horumarka maanta ay ku tilaabsatay magaalada Cadaado dhinaca siyaasadda iyo dhinaca horumarba waxaan dhigi karnaa marka idaacadaha codka gobolada dhexe iyo idaacadaha deegaanada ka jira ruuxantii waxay ka mid tahay idaacadaha ugu horeeya oo inta badan ka hor ka hadla qaybaha kala gudishan bulshada u soo tabiya waxay u baahan yihiin markasta waxaan salaamayaa ama u hambalyeeynaya idaacadda codka gobolada dhexe shaqaalaha madaxda iyo dadka maaragtay intaas waday 8 sano ceeb la'aanna ku soo waday kuwa ay muuqdo ay maqlayeen kuwa aan maqlayn intaba waxaan leeyahay meeshiina ka sii wada runtii markii uu horeeyay aan dhageysto ama furitaankeedaba wuxuu ahaa farxad weyn oo run ahaantii aan lahayn culays weyn ayaan maxaa la yiraahdaa maanta idinka tagay waxaan ku tilmaami karaa run ahaantii aasaasayaalkeeda iyo wariyaasha idaacadda dad mas'uuliyiin iyo xubno horay naftoodii iyo maalkoodii intaba xaflad aadna ay dareenkayga ugu kacsan yahay maadaama aan ka mid ahay dadka aadka ugu dhow idaacadda codka gobolada dhexe oo mararka qaar dadka qaar ay moodaan inaan wariyaasha ka tirsana waxaan dareensanahay in aan aad u jecelahay in aan maanta ka soo qayb galo sanad guuradii 8aad anoo ka soo qayb galay tii 1aad tii 2aad tii 3aad tii 4aad tii 5aad tii 6aad tii 7aad tii 8aad dhammaan la joogay Cadaado 8 sano waa xilli qaangaar la sameeyo oo warbaahintu ay ku qaangaarto oo ay mas'uul ku noqoto oo ay codkar ku noqoto oo ay fahamto maxay tahay in la baahiyo
maxaanay ahayn in la baahiyo la iska daayo waxaan maqlay nin la yidhaha cabdulaahi xasan balaag oo hadda xamar jooga ayaa ka mid ahaa dadkii aas-aaskeeda iyo diyaarinteeda qaybta fiican ku lahaa nin kale oo la yidhaahdo cumar tiijar oo asna xamar jooga ilaa xildhibaanka ay soo gaarto xildhibaan cabdulaahi cumar gurey ilaa ow aadan ay soo gaarto markaas waxay ahayd wax la isu dhiidhiibayo oo qofba maalin uu qabanayo telefishinada iyo warbaahinta kale inta badan dhaqaale ayay ku shaqeeyaan laakiin idaacaddan codka gobolada dhexe cid kasta oo wax dadka u ah ka soo deynaysa wax dhaqaale lagama qaado adduunkana mar shaqay cid iska shaqay karta dhaqaale la'aan ma jirto waxaan ugu baaqayaa dadka ganacsatada reer Cadaadood iyo dadka kale mas'uuliyiinta iyo dadka hay'adaha u shaqeeya in la garab istaago idaacaddan idaacaddu iska shaqayn mayso oo waxaan waa qalab oo duqoobaya oo halaabaya oo gubanaya marka waxaan leenahay cid kasta waa inay horta ku baraarugsanaataa idaacaddan cid gooni inaysan lahayn maadaama aan bal lacag lagu qaadeen oo qof lacag laga qaadayo aysan jirin wixii dan guud ay ka hadlayso waa inay dadka dhamay ka dhaxaysaa qof kasta waxaa la rabaa inuu u taagnaado inuu contribution baxsho inuu idaacadda garab istaago kii computer gadi kara kii qaybta FM ta gadi kara kii solar keeni kara afti laga sameeyo dadka laga aruuriyay aqligeena oo idil waxa lagu agaasimay maanta codka gobolada dhexe